markii la dhahaa meel ay ordaana orda martika waxaan rabaa inaan calool aan ku yeesho alxamdulilah hadda waa calool yar oo soo baxday midda kale qofku markuu raashinka excessive ka qaato calooshu waa muruq dee way sii weynaanaysaa kalabar dadka ku nool caalamka ayaa dagaal ugu jira sidii ay u dhimi lahaayeen culays ka saaran jirkooda khubarada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin qofkii uu cuslaado jirkiisu ama uu ka muuqdo cayil uu halis ugu jira cudurro fara badan marka loo yimaado Soomaalida dad badan ayaa iyaguna dagaal kula jira cayilka hase ahaatee waxaa ka soo soka martay caloosha oo noqotay hadda waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay aragtiyo kala duwan ayayna dadku ka qabaan arrinkan qaar ayaa ku faana oo sheega in qofka caloosha leh uu u muuqdo qof mas'uul ah oo la aamini karo sidaa darteedna la badsado cabidda shaaha cadayska iyo cunooyinka ka samaysan burka sida bariiska iyo baastada oo la sheego inay qayb ka yihiin waxyaabaha kobciya koritaanka caloosha caloosha wallaahi faa'iidadeedu waxa waaye horta waxay ka mid tahay mas'uuliyadnimadeeda ka mid tahay oo mataqaanta maantayto ninka caloosha la iyo ninka caloosha lahayn waxay ku kala duwan yihiin ninka caloosha la badanaa markii la arko waxa waaye dadka hore ka aaminay laakiin nin aan calool lahayn macnaha waxa loo arkaa inuusan mataqaana waxa mas'uuliyad ay ka muuqan waxaan rabaa inaan calool aan ku yeesho alxamdulilah hadda waa calool yar oo soo baxday waan si jeclaa inay sii weynaato haddana calool lahayn waxa waaye wax ma noqonayso cid ku aaminayso maba lahaaba calool haddaa yeelatan waxa waaye mas-uulaab lagu imaada soomee shaahu waa sharaab uu u baahan yahay jirka balse caanaha badan ee lagu daro ayaa mararka qaar keeni kara in caloosha qofka ay soo buurato balse dhalinyarada qaar waxay aaminsan yihiin qofkii sameeya jimicsi iyo waxyaabo la mid ah in waxba aan u dhimaynin shay wali ku aaminsana intuu siyeed caloole iyo walbada shan oo ku aaminsana qofkii training sameeyay amal ama tasambol maalintii raabti shay halkooba dhame galabtina dhame laakiin training aan sameeyay ma doonino dheere ma doono jima qaade laakiin dadka shay wali jeedada wal maalintii tuman koob 8 koob dhamaan jaro oo training aan sameeyay marka laga soo tago dadka ay faanka u noqotay caloosha waxaa jira kuwa kale oo dagaal kula jira iyaguna kuna bixiya kharash iyo waqti sidii ay u dhimi lahaayeen caloosha wax fiican maaha adduunyaha badanaa waa aragteen caloosha aad baa loogu dagaalamaa marka sideedaba caloosha waxay keentaa yani cudurro badan way keentaa quruxda hataa way dishaa qofka caloosha leh surug uma labisan karo marka taa waxaan u malaynayaa waa fikir qaldan oo laga dhaadhiciyo dadka cudurka ugu badan meesha uu ka yimaado waa caloosha calooshaada hadday mataqaanaay faadka uu ku badan yahay qarasti baa badanaysa wax walba marka cudur walba aad u jilcayso inuu ku yimaado marka waxaan kula talin lahaa dhalinyarada intay yar yihiin inay exercise-ka badiyaan calooshana iska jaraan sanadihii dambe waxaa soo shacbaxay waxa loogu yeero six pack oo ah in qofka uu dhiso jirkiisa gaar ahaan caloosha waxaana arrinkaasi ay aad u soo jiidatay hablaha iyaguna waxay ka qabaan aragtiyo kala duwan gaar ahaan ragga caloosha leh xagga salaada kuma wanaagsano hadii la yiraahdo orod kuma wanaagsano xagga sariirtan aad ugu wanaagsano marka ragga caloosha leh inay iska jiraan baan doonayaa nin calool leh Soomaalihan horta way dib badan yihiin mid horeysa waa cudur badan yihiin cudur waxay qabaan dhiikar camal ku dhaca markaas ku dhaca qaadistiisa waa dib badan tahay markii la dhahaa meel ay ordaana orda martika بس يمكن على لهنا ما بلسكو موق أركيا حتى نك علاش لو حي أمو قطع إنه عافيمات كيس وهجاجي هاي مدة ذاك اللي تكن علاش أنقل محاول مودا إنه عذر لي هاي وحي قو حتى ما كل تقاليد مركو نكيك حتى إنه علال ويشت أنا وهذا والبعانة أساس ما قرتي مدة ذاك اللي علاش وحي مو قطع إنك إنه مال قوي هاي أما اسمه التاجر هاي وحين موجسارك نمدي صا استعمال كخضارته أي على شيء إني كان لحالة كقاعدة يرين تعيلك جرهانا لنك علوشة waxaana jira dad badan oo isticmaalay oo hore culayskoodu uu u badnaa iminkana wax badan ay ka dageen
aniga waxaan miisaankayga 75 now waxaan ahay 65 waxaan ku riday waa xabxabka liinta babayga waxa soo qudaartaas waaye caafimaad baa ku jira meeshaan baasti bariis ku riixi jirnay canjeero alaabtaan aan cunayaa 3 months aan cunaya wax kale ma cuno taased hase ahaatee isweydiintu waxay tahay maxaa keena caloosha caafimaadka si dhibaato intee leeg ayay ku haysaa marka caloosha waa arti area badan bay leedahay hal meelahana waxa weeye meelaha faadku uu ku badan yahay jirka maxaan ku rahdaa caloosha xuub oo dufanaha dul saaran waa meesha ugu dufanka badan bay ka mid tahay calooshu maxaan ku rahdaa dusheeda sidaa daraaddeed faadkii meesha ayada ahayd ayuu wuxuu ku samaynayaa accumulation oo ku badanhaya sidaa daraaddeed ayay dadku calooshu ula soo buurataa marka diet exercise raashin maaragtay dheelitiran borotiinku u badan yahay khudradda u badan tahay carbohydrate ku yaray haddaad cunto dee faat baruur ma yeelanaysa haddii aad exercise samaysana waad gubaysaa oo baruurtii baad gubaysaa sidaa daraaddeed waxay noqonaysaa murqo sidaan oo kale